salaada oo waajibka tuko masaajid ku tuko salaatu ljamaacati khayrun yani waxay ka khayr badan tahay salaada fardiga intaasoo ajar ay uga fadli badan tahay jamaacada islaamka iltizaam tuko sunnooyinku tuko jadwalkaadi maalintiina marka waxaa la rabaa inaad maalintii aad akhriso 2 juz oo quraan aad akhrin karto ama 4 safxa oo quraanka aad akhriso ama juz akhriso 2 juz aad akhriso quraanka waqti asiiso ayaa laga rabaa inaad sunnooyinka aad badiso sunnooyinka yani kuwii salaatul adha haday noqoto salaada oo bacda qabla salaa iyo bacda salaa inaad salaadaas aad badiso ayaa laga rabaa inaadan hilmaamin laga rabaa adkaaru sabaaxi wal masaa subaxi markaa soo kacdo inaad akhriso ducada subaxi la akhrinayo adkaarta la akhrinayo subxaanaka yani inaad akhriso ayaa laga rabaa asbaxna wa asbax almulku lilah inaad akhriso qul allah inaad akhriso birabbi naas aad akhriso birabbi falaq aad akhriso aayatul kursi aad akhriso ayaa laga rabaa waxaa kaloo laga rabaa adkaarta la akhrinayo dubura kulli salaa markaad salaada ka baxdo ha ordin meel la ordaa oo masaajid ka fiican ma jirto haddaad hooyo tahay fadhigaadi daa'im adkaarta akhri yani allahuma anta asalaam wa minka asalaam akhri tabaarakta ya jalaal ikram waqtigaadi ka faa'iidayso yani ha ordin yani ilaahay orod marka waxaa la rabaa inaad akhriso adkaarta salaada ka dambe inaad akhriso waqtigaad uga faa'iidayso الدعاء عند الافطار dad fara badan ay marka ay furayaan yani iyagoo waqtigaas qiimihiisaan ogeen ay sheeki fara badan ay galaan qaarna waxay ku jiraan facebooka qaarna whatsapp ayaa ku jiraan waqtigaas yariiska oo la afurayo afurka ka hor waa waqti aad muhiim u ah inaad waqtigaasi ducadaadi adkaartaadi quraankaadi waalidkaadi ilaahay u tug in ilaahay uu janno geeyo hadduu dhintay hadduu nool yahay ilaahay uu insha qaatimi fiican u sameeyo ilaahay tug يعني وقتigaas ha ku dhuminin sheeki baraaley ha ku dhuminin waxa loo joogin ha ku dhuminin dad qaarna markii casrka la gaaro waxay isku imaadaan sidii isla camal meeshan la yiraahdo Equity Bank iyo Tolofka akhyaar badan ay isku imaado waxay ku ciyaaraan dublad ay ku ciyaaraan yani waqtigaas aad u muhiimka dublad ha ku dhameynin waqtigaas aad muhiimka ha ku dhameynin sheeki baraaley waqtigaas ha ku dhuminin fadhi ku dirir fadhiga waqtigaas kaga faa'iideyso adkaarta iyo quraanka iyo salliga rasuulka inaad uga faa'iideysto ayaa loo baahan yahay waxa kale loo baahan yahay inaad qiyaamul layl asameyso taraawih inaad iltizaamto rasuulku wuxuu dhahay ninkii taraawiixa la tukado imaamka ilaa uu ka dhameeyo ajar badan ayuu leeyahay taraawiixa isku day inaad tukato 10 hore dadka dhan waa tukanayaan laakiin markii 10 labaad la gaaro dad fara badan waxay ku leeyihiin hay taraawiix waan ka baxnay sidii aan ku laabano marka waxaa rabaa inaad taraawiixa aad tukato gurigaadana aad salaad aad ku sii tukato aad fiiriso inaad yaraad habeenkii sii tukato 2 rakac 7 rakac markaad soo kacdo inta saxuurta aadin ka hore inaad rakaco inaad tukato saxuurtaad cunto markaad ka baxdana hurdo ku laabanin masaajidka sii aado si aad waqtigaas uga faa'iideysto qiraa'atul quraan uga faa'iideysto adkaarta uga faa'iideysto inaad fiiriso bal kitaabka quraanka si fiican u akhriso ayaa loo baahan yahay wardiga yawmiga wardiga yawmi markaan ka hadlayno adkaaru sabaaxa jira adkaaru masaa jira in la akhriyo in ruuxu uusan waqtigiisa ku dhameynin sheekun ku dhameynin ayaa loo baahan yahay maalintii isku day inaad nabiga ku saliso 300 oo jeer nabiga inaad ku saliso yani inaad 200 ama 300 oo istighfaar sameyso maalintii rasuulku wuxuu ahaa 70 maratan ayuu sameyn jiray adkaarta استغفارتا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله inaad badiso ayaa laga rabaa waqtigaad uga faa'iideysto waa inaad akhrisaa maalin kasta 10 safxo oo quraan kariimka oo aad akhriso intaad karayso kitaab fiqi oo la yiraahdo madaarik saalikiin inaad akhriso wax badan ayuu ka sheekeynayaa yani hatta cilmiga islaamka haday noqoto fiqiga haday noqoto xadiiska waa inaad soo celisaa noloshaad ku soo celisaa aad adinafsaad akhrisa ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay barnaamijyo guud ay jira laga rabo inaad kaga faa'iideysato oo ah in aad barnaamijyaas aad kaga faa'iideysato si guud aad uga faa'iideysato مثلا inaad ka qayb qaadato in barnaamijyaha afurka oo xaafadaha laga sameeyo inaad kaga faa'iideysato dadka la afurso dadka afuriso dadkan u sheegto muhiimada ay leedahay inaan isku imaano isla afurno